السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله. دعوة شرفت له كسر هذا أرق ضمير. رسوش إلهي مجعاوي إسقون كشكين قام قضوا وحكم ده النبي أيوب نبي ذو الكفل إلهي كموسى شكين قصديسة بس نبي أيوب إلهي كشكين سيجارة نبي أيوب حكم ده أوبت كنبي إبراهيم ابن كثير حكورين يا كتاب كيسة البداية والنهاية إن لقصوا بريء صحابي ابن عباس السيقالة إلهي وحوصة دير النبي أيوب رير روم وضدك لو يقانو هذا يوروبتا وحيد جنايين برياس أجار كشام أناضول إلى إن حلقاس ميسن جارين ضدك خارج يوروب نبي أيوب وحوها خوف حول له ورخم إلهي أياكو امتحاني حنون كود جركيسنا كما baadin marka laga reebo wadnihiisa iyo carabkiisa midabka jirkiisa ayaa isbedelay dadkii ayaa dhibsadeen wayna ka fogaadeen waxa uu haray qura xaaskiisa oo ku sabartay ilaahayna uma imtixaanin nabi ayub dambi uu galay ilaa waxa hore u soo sheeganay inuu ilaahay ka ilaaliyo nabiyada dambiyada iyo xeebaha dadka nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay inay nabiyada ugu daran yihiin imtixaanka kadibna ay ku xigaan sida loo kala wanaagsan yahay nabi ayub ayaa la karantiilay oo la takooray wuuna ku sabray karantiilkaasna wuxuu socday 18 bilood macnaha sanad iyo bar waxa la sheegay in qoomkiisa ku khasbeen in laga fogeeyo magaalada si uusan u faafinin cudurkiisa sidaas ayuu ku noqday mid ka fog dadka oo taag daran arkaynina cidna xaaskiisa marka laga reebo ila wiilo dhalatay oo booqasho ugu iman jireen ilaa xaaskiisa ay dhibaatooto iyadoo gegsanayso raali ku ah nabi ayub ayaa ilaahay baryay wuxuu yiri rabbiyow waxa igu dhacay cudur shaydaan ayaa itaabsiyay xanuun iyo cadaab nabi ayub wuxuu cadeeyay in sababta xanuunkiisa cudurkiisa uu yahay uu sababay shaydaan sidii nabiga bay u sixireen ilaahay ayaa ka badbaadiyay ilaahayna uu imtixaana adoomadiisa balse uu ka badbaadiyay adoomadiisa muuminiinta ah imtixaanka markay ku gegsadaan sida caadada ahaydna xaaska nabi ayub waxay u raacisay nabi ayub markuu soo xaaji gudanayo waxay dadka aadi jireen banaanka fog maalmaha kamid ah ayaa waxay isu raaceen asiga xaaskiisa xaaji gudasho xaaska nabi ayub ayaa waxay ku sugtay meel ka qarsoon uu ka soo daahay muddada uu ka maqnaa ayaa ilaahay u waxyooday waxaana lagu dhahay nabi ayubo waxaa lugtaada ku garaacdaa dhulka waxa ka soo burqanayo biyo nabi ayub sidii ilaahay faray ayuu sameeyey waxaana ka soo burqaday dhulka biyo ilaahay ayaana ku yiri waxaad kaga qabaysataa biyahan kanacab markuu sameeyey nabi ayub uu ku qabaystay kanacab biyihii ayaa jirkiisa ku soo laabtay quruxdii hore u lahaa muddada uu qabaysanay ayaa hareereysay daruur waxaan u soo daatay weel dahab ah iyo weel qamadi ah nicmadaas ayuu qaatay nabi ayub markuu aruursanayay dahabkii ayaa ilaahay ku yiri miyaanan kaaga deeqtoon nabi ayub ayaa yiri yaa ka maarmo naxariistaada deedna nabi ayub ayaa u soo muuqday xaaskiisa asagoo qurux badan oo ka gedisan muuqaalkii hore uu ugu aragtay xaaskiisa intaysan ka qarsoomin waxayna tiri miyaad aragtay nabi ilaahay ee ila imtixaanay wuxuu ku yiri waa kan aniga ayub sidaas ayaa ilaahay ugu soo celiyay farxadii iyo nicmadii qoyskii nabi ayub ilaahayna wuxuu siiyey maal iyo ubad fara badan kadib markuu waayay dhammaantooda xaaskiisa mooyee ilaahayna wuxuu ku ammaanay nabi ayub inuu yahay adoon mahadnaq badan oo gegsada رسوشي إلهي مجعاوي حلي إسرار عن نبيه وحكمه نبي يونس وحكولنا ولا قوم كيس نينوا دول العراق إلهي وحوش شاجا إنه نبي يونس قوم كيس إيجاريين بقول كم يعديراده سيد عادة هاد أيا نبي يونس قوم كيس وحويري توحيد كإني قاتن دين الإسلام بل سمر كيديدين إن بينيين أيو إسكاج عراضي ونكتكي وحن وجه استيق دنك بدا حيب تبدا أيو كأركي دت كوريا دون ونراعي دونتي أيا بدا راعين ضمان تودا دتكي جوجي ماشا بل سمر كي بدا دعبرتن كذا مريين أيا دونتي حملي ويسي وحنا جوانكو جارين إني قريتوركي أيا كصبحي نبي يونس deedna nabi yunus ay ka tuureen doonta wuxuuna ku dhacay badda waxaa laqay nibiri kaluun weyn nibirigii ma uusan jajabinin lafaha nabi yunus sidaas ayuu nabi yunus wuxuu ku noqday qof kaliya oo ku sugan meel mugdi ah nabi yunus ayaa bilaabay inuu ilaahay u tasbiixsado nazaho sida caadada ahaydna tasbiixdiisa ayuu ku sii dhaxwatay caloosha nibiriga isagoo leh laa ilaaha illa anta subhaanak innii kuntu min adh-dhaalimiin ilaah xaqnimo lagu caabudo ma jiro ilaahay oo adiga mooye nazahnaantaada waxaan ka mid noqday kuwa gardaran hadduusan nabi yunus tasbiixsan lahayn wuxuu ku sugnaan lahaa caloosha nibiriga ilaa qiyaamaha balse ilaahay ayaa ka dhigay tasbiixda mid ku badbaadisa nabi yunus carada nabi yunus uu ka carooday macangagnimada qoomkiisa maysan ahayn dunuubta dadka ay galaan oo kale sidaas darteed ayaa nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma haboono qof inuu yiraahdo waxaan ka fadli badanahay yunus ibn mata tasbiixdii nabi yunus uu ku celceliyay ayaa ilaahay kaga soo saaray caloosha nibiriga wuxuuna ku soo tuuray banaanka xeebta isagoo xanuunsan nabi yunus waxaan ilaahay ka soo saaray xeebta geedka lagu magacaabo yaqtiin si uu ugu caafimaado jirka nabi yunus xanuunkan ugu baaba'o sheekh bassam jarraarna wuxuu sheegay xilligan casrigan hadda noolnahay dadku waxay u adeegsadaan geedka yaqtiin isqurxinta jirka ilaahay markuu ka badbaadiyay imtixaanka nabi yunus ayuu qoomkii nabi yunus soo diray cadaab balse markay arkeen qoomkii nabi yunus cadaab ku soo socdo ayay ilaahay rumeeyeen wayna tooba keeneen halaagi ayaa laga celiyay deedna waxay noolaadeen muddo kale iyagoo mu'miniin ah waana qoomka kaliya uu ilaahay ka badbaadiyay cadaab ku soo socday qoomkaani ay gaarayeen 100,000 iyo dheeraad ah oo noqday muslimiin ayaa tilmaamaysa inay tirada muslimiinta sii badanaysay cagsiga ummadihii hore ee la soo halaagay qoomka nabi yunus kadibna waxaa yimid qoomka nabi muuse oo ka tira badan qoomka nabi yunus sidaas darteed ayaa ilaahay ku waajibiyay qoomka nabi muuse jihaad bedelka halaag ayaa ilaahay ka badbaadiyay qoomka yunusna wuxuu ka soo saaray nibiriga sidoo ayuub ugu nadiifiyay cudurka jirka karantiil cudur iyo khariiska tuur khayr baa xiga sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad wasalaamu calaykum